Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada qaybta saddexaad ee taxanaha sirdoon iyo sidoo kale qaybta koowaad ee taariikhda Eli Cohen. Eli Cohen oo magaciisa oo dhammaystiran ahaa Eliyahu bin Shaul Cohen wuxuu ahaa basaas Yuhuud ka shaqaalaysiisa Suuriya. Wuxuu ku soo caan baxay howlgalkii khatarta ahaa ee basaasnimo sanadihii 1961 ilaa 1965 oo uu ka fulinayay gudaha Suuriya. Wuxuu xiriir wanaagsan la lahaa siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan oo Suuriyaan ah. Wuxuuna xitaa noqday wasiir ku-xigaha wasaaradda difaaca ee Suuriya. Intaa kuma koobnaan ee wuxuu noqon gaadhay oo uu haweystay xilka ugu sarreeya dalka Suuriya ee madaxweynenimo. Eli ma uusan ahayn basaas sahlan oo xogihii ay Yuhuuddu ka heshay waxay u fududeeyeen guushii ay ka gaareen dagaalkii 6 cisho oo ahaa dagaal dhiig badani ku daatay una dhexeeyay Yuhuudda iyo dowladaha Carabeed ee Masar, Suuriya iyo Lubnaan. Wuxuuna Yuhuudda u yahay halyey qaran oo howlkar ah, ku dayashana mudan, sida lagu faafiyey bogagga warbaahinta Yuhuudda. Sanadkii 1924 Eli Cohen wuxuu ku dhashay magaalada Alexandria oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Masar. Wuxuuna ka dhashay qoys Yuhuud Sahyuuniyiin ah. Labadiisa waalidba waxay ahaayeen Yuhuud. Eli dhalashadiisa ka hor aabihiis ayaa ka soo guuray magaalada Aleppo ee Suuriya una soo guuray Alexandria. Waxaana halkan ka fahmaynaa in aabihiis si fiican u darsay dhaqanka, luqadda, ganacsiga iyo diinta Islaamka ee dadka Carabeed. Eli Cohen wuxuu waqtigiisa carruurnimo ku soo qaatay magaalada Alexandria markii la gaaray sanadkii 1947 oo ay da'diisu ahayd 23 jir. Wuxuu Eli isku dayay inuu ku biiro ciidamada Masar. Waraysigii ciidamadu ka qaadeenna waxay u sheegeen inuusan u qalmin noqoshada askari Masaari ah. Dabayaaqadii sanadkaasna wuxuu ka tagay jaamacaddii uu dhigan jiray oo uu bilaabay inuu iskii guriga wax iskugu baro sababo la xidhiidha hanjabaado iyo eedeymo uga yimid Akhwaanul Muslimiinta Masar. Sanadkii xigay ee 1948 ilaa wixii ka dambeeyay oo ku beegnayd xilligii Yuhuudda sida xoogga ku qabsatay dhulka Falastiin, dad badan oo Yuhuuda ayaa ka haajiray Masar una guuray Israa'iil. Sanadkii xigay ee 1949 inkastoo Eli waalidkii iyo walaalihiiba ay ka mid ahaayeen dadkii u guuray Israa'iil, isagu wuxuu sii joogay Masar si uu u dhammaystirto waxbarashadiisa jaamacadeed iyo sidoo kale si uu iskugu xidho dhaqdhaqaaqii Sahyuuniyiinta ee Yuhuuddii joogtay Alexandria. Sanadkii 1961 Eli Cohen ayaa xabsiga loo taxaabay muddo kooban. Waxaa la xidhay kadib markii la ogaaday howlaha Sahyuuniyiinta ee uu faraha kula jiro, iyadoo markii dambena xorriyadiisa dib loo siiyey. Eli wuxuu sanadihii kontameeyadii ka qayb qaatay howlgalkii dadka Yuhuudda ah ee Masar ku nool loogu daabulayay Israa'iil. Dowladda Masar oo aan ku baraarugsanayn howlgalka Eli ayaa u sahashay inuu si dhabyar ah u wato hawsha daabulidda Yuhuudda lagu deegaameynayay dhulka Falastiin. Sanadkii 1955 shabakad sirdoon oo ka koobnayd basaasiintii Yuhuudda ahayd ee Masar joogtay iyo Masaaridii Yuhuudda u adeegaysay ayay Yuhuudda abuurtay howlgalkii lagu magacaabi jiray Susanna Operation oo ahaa isku day ay Yuhuuddu ku doonaysay inay ku burburiso xidhiidhka Masar kala dhexeeya dowladaha reer galbeedka. Qorshuhu wuxuu ahaa qarxinta bartilmaameedyo reer galbeed oo Masar gudaheeda ah, meelaha wax lagu akhristo iyo xarumaha goobaha waxbarashada ee ay reer galbeedku maamulaan. Markii dhagarahaas la maleegay fulaanna reer galbeedku dusha ka saaraan Akhwaanul Muslimiinta Masaarida. Shabakadani dhagarihii ay Masaarida ugu dan lahayd waxay ahaayeen kuwa Masaarida dhibaato weyn u geysan lahaa. Waxay ugu horreyntii qarxiyeen bartilmaameedyo reer galbeed iyagoo istusay in lagu eedeyn doono Akhwaanul Muslimiinta Masar. Dhacdada waxaa kaloo loo yaqaan Lafon Affair. Dowladda Masar ayaana baadhitaano ay samaysay ku soo ogaatay in shabakadani ka dambayso. Eli Cohen wuxuu ka mid ahaa shabakadaas, inkastoo labadii sargaal ee ugu sarreysay howlgalkaas lagu xukumay dil toogasho. Waxaa dambiga lagu soo eeday wax caddayn ah loo waayay Eli Cohen waana la sii daayay. Fashilintii howlgalkaasi wuxuu dhabarjab ku noqday Israa'iil, inkastoo Israa'iil beenisay inay wax luga ku lahayd howlgalkaas.
haddana waxba umuu dhimin xidhiirkii masaarida ee reer galbeedka. dhacdadaas waxaa raacday xiisadii kanaalka Suez oo markaasun Masar haysatay, waxayna dowladdii Masar ee xilligaas dalkeeda ka tarxiishay in badan oo ka mid ah Yuhuuddii ku noolayd Masar. December sanadkii 1956 Eli Cohen waxaa lagu khasbay inuu waddanka Masar ka tago. Waxay ahayd talo ka soo gaadhay dowladda Israa'iil, wuxuuna u soo haajiray Israa'iil isagoo doon uga soo baxay Masar, soona maray magaalada Nablus ee dalka Talyaaniga. Sanadkii xigay ee 1957 waxaa Eli Cohen markii uu Israa'iil yimid shaqaalaysiisay wasaaradda difaaca Israa'iil. wuxuu ku fiicnaa turjumidda oo wuxuu yaqaanay luqadaha Carabiga, Ingiriiska iyo Faransiiska. sidaa daraaddeed wuxuu wasaaradda ka qabtay jago turjumaannimo. inkastoo Eli uu ku shaqaynaya xafiis, wuxuu ku caajisay shaqada wuxuuna go'aansaday inuu ku biiro wakaaladda sirdoonka Israa'iil ugu khatarsan ee Mossad, iyadoo xilligaas Mossad aysan ogolaan dalabkiisa ku biiridda. isla waqtigaas wuxuu iska casilay jagadii uu ka hayay wasaaradda difaaca Israa'iil. labadii sano ee xigtay Eli wuxuu ka shaqaynayay xafiis shirkad caymis oo Tel Aviv ka shaqaynaysay. sanadkii 1959kiina waxay isguursadeen Nadia Majaldi oo ahayd Iraaqiyad Yuhuudiyad ah oo u soo haajirtay Israa'iil. Nadia waxay la dhalatay qoraaga caanka ah ee Sami Michael. Nadia iyo Eli waxay markii dambe isku dhaleen 3 carruur ah, Sofia, Irit iyo Shai. maalmaha ka mid ah Merit Armid oo ahaa agaasimihii guud ee wakaaladda Mossad ee xilligaa ayaa isaga oo doonaya sirdoon loo diro Suuriya waxaa gacantiisa ku soo dhacay faylka Eli Cohen. inkastoo markii uu akhriyay xogta ninkan aanu ku qancin agaasimuhu, haddana wuxuu go'aansaday bal in xogtiisa la baaro, waxaana ugu dambeyntii la go'aansaday in la shaqaalaysiiyo Eli. waxaana markan la ogeysiiyey Eli in Mossad doonayso inay shaqaalaysiiso. markuu dalabkaas aqbalayna wuxuu qaatay koorso aan caadi ahayn oo 6 bilood ah oo uu ku qaatay dugsiga diyaarinta basaasiinta Mossad ee Tel Aviv. waxaa la baray taatikooyinka ciidan ee asaasiga u ah basaaska, waxaa la baray kitaabka qur-aanka ah, waxaa la baray salaada, soonka iyo dhammaan waxyaabaha waajibka ku ah qof walba oo muslim ah. waxaa sidoo kale la baray cilmu nafsiga iyo sida ugu fudud ee basaasku xog ku heli karo kuna soo diri karo, iyo xeeladaha u gaarka ah sirdoonka marka ay xog gudbinayaan ama helayaan. markuu dhammaystay koorsadan, warbixintii macallinkiisu ka diyaariyey wuxuu ku sheegay in Eli u dhammaystiran yihiin dhammaan shuruudihii looga baahnaa una diyaarsan yahay inuu wajaho howlgalka loo qorsheeyey. waxaa isla markiiba loo sameeyey aqoonsi been abuur Suuriyaan ah. waxaa laga dhigay ganacsade Suuriyaan ah oo qurbaha ku noolaa si aan loo dareemin hagardaamada uu soo wado. si qorshuhu u dhammaystirmo, waxaa loo sheegay in isagoo ganacsade ah uu aado Argentiin, isla markaana uu iska dhigo ganacsade Suuriyaan ah oo muddo ku noolaa Argentiin, doonayana inuu dalkiisa ku laabto maadaama ay daltabyo hayso. kani wuxuu ahaa howlgal basaasnimo oo ay dejiyeen khabiiro Mossad u shaqeeya. lacagan tiro yarayn iyo maskaxna la geliyey si loo hodo dadka iyo dalka Suuriya. Eli kaligiis ma uusan tegin Argentiin, waxaase aan ka maqnayn basaasiin Mossad u joogtay Argentiin oo u fududaysay wixii kaalmo dheeraad ah ee lagama maarmaan u ahaa. safarkii Dimashq, tabaha iyo xeeladaha uu isticmaalay Eli Cohen si uu xiriir wanaagsan ula yeesho siyaasiyiin meeqaam sare leh, saraakiil ciidan, qunsuliyadii iyo bulshadii dibadjoogga ahayd ee Suuriyaanka, waxaa horay u sii dejisay wakaaladda Mossad. Eli Cohen intii uu joogay Argentiin wuxuu si caadiya u watay noloshiisii caadiga ahayd, wuxuuse waqti badan ku bixin jiray tegidda goobaha fadhi ku-dirirka ee lagu falanqeeyo siyaasadda si uu xog badan uga ogaado dowladda Suuriya iyo si uu si fiican ugu fahmo qaab kaftaneedka dadka Suuriyaanka. wuxuu xitaa xaflado ku qaban jiray gurigiisa si uu kalsooni buuxda uga helo Suuriyaanka. wuxuuna markan isticmaalay kaarto ay caan ku yihiin basaasiinta Yuhuuddu. wuxuu xafladaha gurigiisa lagu qabto mararka qaarkood ku dari jiray kuwo jinsi ah, yacni galmo iyo fawaaxish oo dhan xambaarsan,
si uu iimaanka uga dilo ugana duubo muuqaalo uu isticmaali karo black smiling ama barmadow. Waxaa dabinkan ku daatay wasiiro, ganacsato iyo dad kaleba, kuwaas oo isticmaalay dabaqa Eli Cohen deganaa, wuxuuna ku casuumi jiray dumar jidhkooda ka ganacsada. Dadkaas waxaa kaloo ku jiray xog hayayaal ka socday wasaaradda difaaca ee Suuriya, shaqaale diyaaradeed iyo fanaaniin oo dhammaantood ahaa Suuriyaan. Waxay noo caddaanaysaa in xafladaha noocaas ah yihiin kuwo si xor ah la iskugu waraysto, oo hadba wixii qorshayaal ciidan ah lagu gorfeeyo, wixii hadba xog cusub ee la helana la isku dhaafsado. Marka ay tan oo kale dhacayso, Eli Cohen oo isticmaalaya magaca Kamil Amin Thabit wuxuu iska dhigi jiray nin aad khamrada uga badatay, wuxuuse si fiican uga bogan jiray xogaha muhiimka ah ee mas'uuliyiinta afkooda ka burqanaysa, isagoo marka ay faaruqaanna qoran jiray Kamil ama Eli Cohen. Wuxuu lacago tabarucaad ah iyo kuwo saaxiibtinimo siin jiray mas'uuliyiin dowladda Suuriya ka tirsan, isagoo iska dhigaya wadani dadkiisa iyo dalkiisa jecel, lana garab taagan wixii taageero ah ee karaamkiisa ah. Lacagahaas waxaa weydiisan jiray saraakiishii gurigiisa ku tuman jirtay marka ay khamriga iska badiyaan, wuxuuna u sheegi jiray marka ay waabariistaan ee sunta khamrigu jidhkooda ka yaraato inay tani ahayd ballan uu ka qaaday xalay markay cabsanayeen uuna oofinayo. Sidaas ayayna ku bilaabatay lacag siinta mas'uuliyiintii ahaa siyaasiyiinta iyo saraakiisha ciidan ee gurigiisa martiqaadka u iman jirtay. Eli Cohen ama Kamil Amin kama uusan duwanin basaasiinta kale. Dumar badan oo Suuriyaan ah ayaa aad u jeclaaday oo dhammaantood midibada kale ay ka qurux badnayd, waayo sida ay iyagu u arkayeen waxaa iskugu darsantay dhowr sifo oo ay dumarku aad u jecel yihiin: dhalinyaranimo dhabankiisu nuurayo, hodantinimo ay raacdo deeqsinimo, iyo xaas la'aan. Dhanka kale, ilo dhowr ah ayaa sheegay in xiriir fiican dhex maray Amin al-Xaafid oo ahaa siyaasi Suuriyaan ah, guddoomiyihii iyo xubin ka mid ah Xisbulbacadka Suuriya, iyo sidoo kale madaxweynihii Suuriya ee 27 Julaay 1963 ilaa 23 February 1966. Laakiin 2001 waraysi uu siiyey telefishinka caanka ah ee Al Jazeera, Amin al-Xaafid waa uu iska fogeeyey Eli Cohen, wuxuuna sheegay inaysan macquul ahayn wada saaxiibidoodu, maadaama oo sida uu isagu ku andacooday uu ku maqnaa Moscow ilaa sanadkii 1962. Taxanihiina maanta intaas ayuu nooga egyahay. Halkaas ayaana kasii ambaqaadi doonaa taxanaha xiga. Ugu dambeyntii, ha moogaan la wadaagitaanka asxaabtaada kanaalkan si ay noogu fududaato usoo gudbinta barnaamijyo waxtar leh ummadda Soomaaliyeed. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.